waxaa maanta hotelka Reesta ku yaala magaalada Boorama jirtay ku qabtay shir gudoomiyaha golaha dhaqanka ee beelaha Gadabuur shirkan jireed ayaa waxay ka hadlayeen isxasuusinta iyo diyaar garowga qabashada shirweynaha beelaha Gadabuur ee ka dhici doona dooxada gob shirkan jireed ayaa waxaa ka hadlay Sultan Ibrahim Jaamac Samatar Sultan Cabdiraxmaan Jaamac Dawal iyo Sultan Baadi labadooduna waxaa kamid ahaa wasalaatu wasalaamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam maanta haddaan nahay shir gudoonkii golaha dhaqanka ee beelaha Gadabuur waxaanu halkan doonaynaa inaanu u bayaamino oo aan u cadayno dadweynaha beelaha meel kastoo ay joogaanba in shirkii aanu ku baaqnay ee horeba aanu u shaacinay uu sidiisii yahay una qabsoomayo haddii alla yidhaahdo guddigii qabanqaabada ee howlaha soo dhammaystirasay soo diyaarinaysay ayaa maqan oo ku maqan goobtii shirku uu ka dhacayay ee dooxada gob iyaga ayaana shaacin doona muddada uu qabsoomayo imikase waxaan u cadaynaynaa dhammaanba dadweynaha meel kastoo ay joogaanba in shirkii uu qabsoomayo hawlihiisii lagu guda jiro loo diyaargaroobo meel kastoo la joogo sidii loogu soo ambabixi lahaa shirweynihii beelaha Gadabuur ee ka dhacayay dooxada gob sidaas ayaanu kula dardaarmanaa aananu sheeganaa guddigii qabanqaabadana hawlaheygii soo dhammaystiraya iyaga ayaa marka ay imika soo noqdaan dhammaystirka iyo hawlihii iyaga ayaa ka warrami doona waxaan si anagu doonaya inaan u caddayno in shirweynihii uu qabsoomayo ee aan walaac iyo aan la gelin sidii aan ugu dhawaaqnay ayuuna u yahay wuuna qabsoomayaa insha allahu tacaala sidaas ayaanu u sheegaynaa dadweynaha la socodsiina wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaan maanta halkan usoo fadhiisanay in shirkii qabsoomayo sideediina u socdo runtii mar hore dhow sida u socday maanta oo bisha 29 ay tahayna ay guddigii qabanqaabada oo gudoomiyahooda hogaaminaya ay joogaan gob dhammaystirka hawlihii qabanqaabadu lahaydna ay ku jiraan dhismayaashii iyo nidaamintii iyo hagaajintii wixii ay ku jiraan maantada aan joogna sagaalka bisha ay halkaa joogaan faahfaahinta iyo dhammaystirkana guddiga qabanqaabada iska leh laakiin dhammaantaan waxaanu soo fadhiisanay inaanu dib u xasuusino inuu shirku sidiisa u socdo hawshiina ay dhammaystirmayso haddii la yidhaahdo furgooyinkii iyo nidaamkoogiina lagu dhex jiro hawshii ay socoto ay gebagabana tahay haddii la yidhaahdo qabsoomidda na waxa weeyaan farsamadana waxaa caddayn doona guddidaa maanta ku maqan halkaasi hawshii ku dhex jirta meelii lagu shirayay iyo magaranaysaa ee qaabada hawlihii oo dhan dee hawlishii ay qabanqaaba lahayd oo dhan gacanta ku haya ayaa sheegi doonta laakiin waxaan maanta halkan soo fadhiidaan meesha guddoonka hawsha ayada inaynu caddayno inuu shirkii qabsoomayo cid kasta oo daneynaysaana ay ka soo qayb gashaan haddii la yidhaahdo maxamed alihi wasaxbi wasalam odayada iyo baha saxaafadda qabliyaheena assalaamu calaykum salaan kadib sida odayadayga horreeyay loo soo sheegeen shirkii beelaha Gadabuur oo ballan qaadeen inuu qabsoomo kuna qabsoomo gob toosan qabanqaabadii baa tegtay inamadii qabanqaabin ama dadkii qabanqaabinaya baa tegay hadday dhis tahay hadday haddana hagaajin tahay hadday waktiga oo qabsoomi doonana iyaga inamaa qabanqaabadaa soo sheegi doona cid kasta oo gobollada joogto oo Gadabuursiya cid kasta oo dibadda joogto oo Gadabuursiya ciddii daneynaysaaba sida hortayba loo sheegay ha ka soo qayb gasho waktiga qabanqaabada la sheego ha timaado milo wuxuu kaga soo qayb geli lahaana hala yimaado haddii la yidhaahdo sidaasaan ku shaacinaynaa ku baaqaynaa in shirkii loo diyaar garoobo qabanqaabadiina tagtay imana doonto gadaal la ka sheegi doonto Cabdinaasir Ali Ile shabakada Seeraha News magaalada Boorama